mahad celinayna maxkamadda ciidamada qaybka sida iyo gudoomiyaheeda General Xasan Cali Nuur Shuute sidoo quruxda badneed xukunkii maanta uu noogu aqriyay iyo dhageysigii ka horeeyay maalinta aan goobjoog u ahayn ku saabsanaa xukunka iyo eedihii loo maaragtay been abuurka ahaa ee loo haystay wariyaha tafaftiraha idaacadda Higsi saaxiibkeen Maxamed Cabdiwahaab Abuuja sida aad maanta maqasheen oo maxkamaddu ay sheegtay Abuuja maanta waa xur Allahu Akbar ayaan leenahay aad ayaan ugu faraxsanahay go'aanka cadaaladda ah ee maxkamadda oo aan ka filinay waxaan rabaa inaan ku daro maxkamadda militariga dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay tahay maxkamad aan cadaalad ahayn dad badan waxay aaminsan yihiin maxkamadda militarigu in qofka la geeyay aan dib loo soo celin laakiin waxaan maanta cadeynaynaa in arrintaas beenooday dhageysigii maxkamadda oo markii ugu horeysay dad shacab loo ogolaado anigu aan goobjoog u ahay isniintii aan ka qayb galay sidii aan ka arkay kamaan filaynin in maxkamaddu sidaas ay ugu shaqeyso waxay ficnaan leedahay haddii maxkamadaha kalena ay qaabkaas oo kale u shaqeynayaan Abuuja maanta waa xur 5 bilood ayuu xirnaa waxaan ku faraxsanahay in maanta uu bannaanka joogo oo xur u yahay shaqadiisii saxafinimo uu dib u wadanayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qareenadii saaxiibadeen ahaa muddada dheer ee 5 bilood habeen imaan nala shaqeynay ee daba taagnaa ee si kala duwan noo taageeray si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa qareen Daahir Maxamed Cali Daahir Carab shaqadii quruxda badneed ee uu nala qabtay isaga iyo kaaliyaashiisa iyo dhammaan qareenada kale ee halkan ka qayb galay ee ay ka mid ahaayeen professorada iyo Isxaaq waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kaalintii ayna siiyeen iyo taageeradii ayna siiyeen dhammaan ururadii nagala qayb galay in wariye Maxamed Cabdiwahaab qareeno uu helo lala shaqeeyo si gaar waxaan ugu mahad celinayaa Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi oo garabkayga taagan xogayaha guud ee Soma oo asaguna arrintan si guud iyo si gaar ah ma aan uga wada shaqeynayn in cadaalad uu helo ugu dambeyn wariye Maxamed Cabdiwahaab Abuuja waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo bahda saxaafadda Soomaaliyeed waqtiyo adag soo marteen kuwa kalena waa idinku soo fool leeyihiin way dhamaatay xilligii wariyaha la handadi jiray way dhamaatay xilligii wariyaha lagu eedeyn jiray al-shabaab way dhamaatay xilligii wariyaha wararka adag ee criticalka qora loo handadi jiray oo lagu handadi jiray maxkamad iyo la geenaayo xitaa haddii maxkamad la geeyo sidaas ay uga daba tagi doonaa qareenaan haysanaa waxaana maxkamadaha sida maxkamadda militariga iyaduna aan ognahay oo hubnaa in cadaalad ay samayn doonto saxaafadda waxaa ugu baaqayaa isku duubni waxaa ugu baaqayaa midnimo waxaan ugu baaqayaa in shaqadooda ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed si kalsooni leh oo bilaa cabsi ah ay u qabsadaan iyagoo ilaalinaya nidaamka dalka aad iyo aad u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلهي القرآن كيسو حكير هداك حكم إيسان عدالة سكو مامورة ما أنت عدالة يا شقيسي وحان مدد دير عن تاجنين ودوينك وعن تاجنين مال المناسب هين أنكو هاد يجر شيء إن وريه أبوجا وحريها سقلتن دد بدن أيان لا يابنا مالنتاس dad badan ayaa maaragtay nagu culaadinay dad badan ayaa baraha bulshada nagu weeraray marka aan arintiisa ka hadalno laakiin maanta cadaaladii ayaa shaqeysay waxaan rajaynaynaa in saxaafadda Soomaaliyeed sida loo fahmo waxaan ogeyn Abuuja wuxuu yahay waxaan ogeyn meesha uu ka yimid wuxuu ka shaqeynay marka ku celcelinayna dad badan baa la lahaa shabaab baad garab siinaysan shabaab baad leeyahay ruuxana ninkan duntiisa naqana maanta waxaan aqoonsanay wixii maxkamadda ay go'aankeeda ay soo saartay in ay la mid yihiin wixii shalay aan ka hadlaynay waxaan rajaynayaa in cadaaladdu ay shaqeyn doonto maxkamadda militarigana si gaar ah ugu mahad celinaynaa Shuute iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee cadaaladda ay maartay u mariyeen waxaan u mahad celinaynaa qareenada iyo cid kasta oo qayb ka qaadatay Abuuja wariye wuxuu ahaa Soomaaliyeed waxaa qayb ka qaatay wariyaal badan oo Soomaaliyeed banaanka qoraxda u soo istaagay qof iyo koox iyo laba uma soo istaagin marka waxaan rajaynayaa qof kasta u mahad celinaya oo maalintaas ka qayb qaatay soo siideyntaasi cadaadisna u saaray sidii loo soo deyn lahaa cadaaladdu ha waarto waxaan rajaynaynaa qof kasta inuu cadaalad helo cadaaladdu macnaheedu waxa waaye i'daa'in kulli dhi haqqin haq qof kasta in xaqiisa la siiyo xaqiisii buu helay maanta waxaan leenahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo wax yar ku daro Cabdiwahaab Abuuja waxaan soo daba taagnay Abuuja waxaan soo daba taagnay muddo ka badan 6 bil ku dhow intaas Soomaalida iyo adduunka oo dhan qaar kamid ah way nala yaabanaayeen maxaa yeelay dadka dhan waxay lahaayeen ninka daba socotiin maxaa waaye
waxay ka cabsanayeen maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida qof la keenay inuusan dib u soo laabanaynin sidaa daraaddeed waxaan leenahay runtii waxay ahaaday muddo adag waxay ahayd muddo loo kala haray waxay ahayd muddo dadka intiisa badan ay cabsadeen oo ay nadhahayeen see u doodaysiin ninkaas waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed maanta cadaalad waa waartay gudoomiye Shuute iyo tiimkiisa way guuleysteen guul oo cadaalad ay la gaareen waxaan leenahay saxaafadda Soomaaliyeed mar kasta qof kasta wariyaa oo la soo eedeeyo wuxuu noqon karaa dambiile marka dambi lagu helo kadib waxaan idin leenahay marka inaad dhabar adeegtaan hanjabaadaha iyo waxyaalaha kalena aadan qaadana oo aad daba taagnaataan ilaa aad ka gaaraysaan qofkaas cadaaladiisa uu ku helayo marka waan ku faraxsanahay waxaana leenahay maxkamadaha kale ee gobolka banaadir iyo maxkamadaha la midka ah ee dalka ka shaqeeya waa inay cadaaladda maanta gudoomiye Shuute maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sameeyeen oo kale ay sameeyaan runtii aan isniintii ka qayb galay dhageysigii wuxuu ahay go'aan wuxuu ahay dhageysi cajiib ah 4 saacadood ka badan socday cid kasta waxay rabtay sheegaysay gudoomiyuhu oo si wanaagsan u dhageysanayay waxaan leenahay marka dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa inta ka qayb qaadatay gaar ahaan qareenadeena oo ana ko dadaal badan ku bixinay inay wariyahaas difaacaan oo Dahar Carab ugu horeeyo oo uu hogaaminayo waxaan leenahay boqolkiiba baasantiin saxaafadda inay daba taagnaataan rajaynayna ana kana markaas sida sheegi jirnaa sharciga inaan ku taagnaana rabnaa hadaan dimbi galnana ma sharciga in lagu qaadan rabnaa hadii laga galana sharciga in lagu qaadan rabnaa mar walba shacabkan sharciga ku taaganahay waa baasantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب وريها قلبكي تاجن محمد عبد الوهاب وعلى كل شيء هذا العلص لكن قدام بيتي وعلى محكمة دورتي كعدالي وعلى محكمة دورتي كعدالي إن واحد الله يستعين حرية القول أركتدي سو عبري أو ست دستور كيشروع ذلك وافقسم وعبري إن هاي عدات محكمة إذا بدأ هذا ما دليلنا وحلا جلي دعوة فرن أو فرن دقيس الدنيا كتب دقيس دار وح عداري إن محمد عبد الوهاب نور أبوجا أو سجلين هذه البروساي اللي وصل إليه وحلا يستنى هاين أركتيسا أو حبري أو كوري فيسبوك أو كده إذا عده وحرمنا صحافته وحيسلك كتهاي دولة وناكسن وحيسلك كتهاي ديمقراطية ده دولة وناكسن مجري كرتو هدي أنا جرين صحافة حرة أو شيء يسوع وحي أي أركتو يوحي أي مقشو iyo xaqaa'iqa loo gudbiyo bulshada sidaas darteed waxaan ku baaqaynaa cid kasta in saxaafadda xor laga dhigo oo aan la caburin aada u soo dhaweynaa xukunka maxkamadda oo ay beri uga dhigtay wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja aada u mahadsantihiin assalaamu calaykum waxaan salaamayaa marka hore dhammaan bahda saxaafadda guud ahaan ururadii kaalinta mudka lahayd ku lahayd ooleynta iyo in abuuja uu helo cadaalad horta waa u mahadnaqayaa waa looma kala harin dhammaan ururada saxaafadda wax u kala harin ma laha marka kow waa mahadcelin gaara oo iyaga ku salaysan la'aantoodana taasi inaan la gaari lahayn teeda kale waxaan u mahadnaqaa maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyaasheeda xeer ilaalinteeda garsoorayaasheeda guud ahaan waa u mahadnaqaa waayo waxaan ka aragnay oo isha aan saarnay ama goobjoogga aan ka ahayn waxay ahayd in arrinta ay hoos u daadegaan si cadaalad ahna ay go'aan uga gaaraan kadib markii ay arkeen dulanka iyo xuqdiga sharci daro ee lagu haystay maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo ah wariye ka tirsan wariyaasha Soomaaliyeed waa ayaan daro alxamdulillahi rabbil caalamiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana
أنا أقول ما عملنا وانا عدالة محكمة وانا ما سنتين